haddii aadan hiigsanaynin inaad noqoto naqshadeeyaha masiibada aadanaha waxaad u muuqataa inaadan gaarin awooddaadu buuxda. marka booliska yimaado wuxuu sameeyaa ka bixitaanka ugu xiisaha badan isagoo ku qarsoomay ambalaas kana cararay qorax dhaca. waxaa la sheegay in orfanagan lagu maamulayo wasaaradda fayaqoobka iyo wasaaradda gudaha ee East Germany. ujeedadeedana ay ahayd in carruurta laga dhigo askar quman. waa mashruuc gaar ah oo maskaxda carruurta wax u bedelay iyagoo ku khasbay dhinacyo dagaal oo tirtiray damqasho kasta oo naxariis ah. wuxuuna si degan u soo bandhigaa mid ka mid ah xaqiiqooyinka ugu cabsida badan ilaa ay hadda. macallimiin iyo carruurba way is xasuuqeen. waxay u muuqataa arrin sahlan sax laakiin sidaas ma ahan. wuxuu daaha korogaa in uu jiray loolan awood oo aad u daran. saaxiibayaal dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin. soo dhawaada mar kale. maanta waxaan sii wadaynaa qisada mugdiga ah ee Monster halkaas ay runta dhabta ah si tartiib u soo baxayso. qaybtii hore waxaan ogaanay ciddii ka dambeysay dilalkii taxanaha ahaa nin aan caadi ahayn maskaxdiisana ay ka buuxdo mugdi Johan Liebert. laakiin su'aasha weli taagana waxay tahay sidee ayuu u noqday qof sidaan u halis ah. qaybtan waxaan si qoto dheer u gali doonaa sirta ka dambeysa dhalashadiisa maskaxeed, meesha uu ka bilaabmay mugdigaas iyo sababta oo u noqday bahalka dad badan ka cabsi qabaan. inta aanan u gudbin qisadan fadlan ha ilaawin inaad kanaalka subscribe dhahdo, like-na noo saarto, gambaleelkana aad furto si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeen xiisaha leh. saaxiibayaal sidoo kale ha ilaawin inaad qaybta commentiga noogu soo qortaan enemiga aad jeclaan lahaydeen inaan soo khulaasayno. taageeradiina runtii waa wax naga dhigaya inaan sii wadno qisadan iyo kuwa kasii xiiso badanba. mahadsanidin dhammaantiin saaxiibayaal. hagaag aynu gudagalno qisadeena. qaybta shanaad waxaan la kulannaa Nina Fodner, gabar dhalinyaro ah. Nina waxay ku nooshahay nolol degan magaalada Heidelberg iyadoo la nool waalidkeed koriyay ilaa ay bilaabaan emails aan garanayn oo ku yimaado kombiyuutarkeeda. luuqadda emailska waxay muujinaysaa in qofka diraya uu si fiican u yaqaan oo uu dareen u qabo. dhinaca kale fadhiga daaweynta ee Dr. Getle, Nina waxa uu xaqiijiyaa in hurdooyinkeedii hore ee naxdinta lahaa ay istaageen, laakiin weli ma wajihin dhibkii hore. dhakhtarkana ma uusan u arkin inay gebi ahaanba ka baxday xaaladda. markaas Nina waxay ka shakisaa in saaxiibkeed Peter oo ka dambeeyay emailska, laakiin wuu diiday wax walba. kadib intii uu socday cashar jaamacadeed, dood ku saabsan dilka qoys naxariis dar leh ayaa ka dhigaysa inay ku dhacdo xaalad cabsi leh. mawjad cabsi leh ayaa ku dhacda markii ay ogaato wax argagax leh. ma xasuusna wax ka hor inta aysan jirin 10 sano. dhinaca kalma wuxuu sii wadaa baaritaankiisa joogtada ah ee dilalka la xiriira Johan, isagoo rajaynaya inuu helo wax tilmaam ah oo ku saabsan Johan. baaritaankiisa wuxuu ku hogaamiyaa guri uu degan yahay nin duq ah oo indhala. ninka duqa ah ayaa isla markiiba aqoonsada. ka badan intaas wuxuu sidoo kale aqoon u lahaa Johan. Jack Paul wuxuu sheegayaa in mar Johan la joogay isagoo adeegsanaya magaca France. ninka duqa wuxuu dib u xasuustaa sida Johan aga helay sheekooyinkiisii dagaal, laakiin wuxuu sharaxayaa in waxa dhab ahaantii xiisaha u lahaa wiilka yar ay ahayd hal shay keliya: cabsida dhibanayaasha nasiib darada leh. waxay ahayd waxa keliya ee uu xiisaynayay. wuxuu ku ciyaarayay cabsi. tanma wuxuu sidoo kale ogaadaa in Johan uu qorsheynayo inuu walaashii soo celiyo markay 20 sano jir noqoto. Anna Liebert waxay noqon doontaa 20 sano dhawaan. dib ugu noqoshada Heidelberg, saaxiibada Nina waxay u diyaariyeen ballan indhala si ay ula kulanto wiil ka tirsan fasalkooda oo laga yaabo inuu dirayo emailska qarsoodiga ah. laakiin isla markiiba markay la kulanto waxay aragtaa qof kale masaafo dheer, qof la yaqaan Johan. muuqaalkaas ayaa aad u culus waxayna dhiban tahay ilaa ay ku dhacdo suuxdin. qaybtan Tenma ma ogolaanaya in Johan helo gacanta sare. go'aan adag buu ku qaatay inuu joojiyo qorshaha madow ee soconaya. Tenma wuxuu u dhaqaaqaa Heidelberg Post, shirkad wargeysa, wuxuuna ka codsadaa Jack Mauer, agaasimaha shirkadda, inuu ka caawiyo raadinta maqaal hore oo laga yaabo inuu furo u noqdo badbaadinta Anna Liebert si aanan u afduubin walaalkeed. haddii aysan tani hore u cadeen, Anna iyo Nina waa hal qof. dhanka kale Nina waxay heshaa war cusub oo cabsi gelinaya. saaxiibkeed fasalka oo u eg amiirka riyooyinka ee joogay goobta ay ku suuxday weligiis ma uusan dirin emailada qarsoodiga
ahaa. markaas niina waxay u qorataa Dr. Gedle dhakhtarka cilmi nafsiga in aragtida Johan ay ahayd mid si cabsi leh ugu eg riyooyinkeedii hore, taas oo aan waxba ka caawinayn cabsi kusii kordhinaysa. waad inaad ogaataa niina waxay la daalaan dhacaysay xusuus la'aan kadib dilka waalidkeeda, sidaas darteed weli ma oga xiriirkeedii oo la lahaa Johan. dhinaca wargeyska agaasimaha Moore wuxuu ogaadaa in Tenma habeenka oo dhan ku qaatay baaritaanka geedka qoraalada. wuxuu ku qancay oo laga yaabaa inuu ka walwalsan yahay. markaas ayuu Tenma ku casuumay casho, isla markaana si qariib ah ugu sheegay xaqiiqda xiisaha leh inay xaaskiisa ka tagtay sababtoo ah qamriga iyo sigaarka badan. wax walba sheeko jacayl oo murugo leh ayaa laba nin isku xiri kara. intaas dhexdeeda waalidiinta Koreya ee Nina waxay mashquul ka yihiin qorsheynta dabaaldega 20 sano sanad guurada Nina. waxay markii hore qorsheeyeen inay u sheegaan in la korsaday, laakiin sida waalidkay korsaday ee jacaylka leh go'aankooda ayaa isbedelay daqiiqadii ugu dambeysay. laakiin mar kale Nina waxay heshaa email qarsoodi ah. markan waxay u sheegaysaa fariinta inay kula kulantay Heidelberg saacadu markay tahay 7 fiidnimo. tani si cad uma muuqato qayb ka mid ah qorshaha dabaaldega. dhinaca Tenma iyo Moore ugu dambeyntii waxay raadiyeen ciwaanka qofka ajnabiga ah iyagoo rajeynaya inay ka hortagaan wixii oo Johan qorsheynayo. laakiin sigaar badan ayaad cabtaa. anigoo dhakhtar ah waxaan kugula talinayaa inaad yarayso. hore ayaan kuugu sheegay arrintaasi shaqo kuma lihin. markii ay sidoo kale ogaadaan inay Nina halis ku jirto, waxay si dhaqsi leh ugu cararaan si ay ugu digaan, balse waxay helaan inay hore u maqan tahay. Tenma wuxuu si dhaqsi leh ugu dhaqaaqaa Heidelberg Castle, halka Moore oo ka dambeeyay si uu xaaladda ugu sheego waalidiinta cabsigalaya ee Nina. markuu isku dayo inuu booliska waco, wuxuu ogaadaa in qadka taleefanka la jaray. markii ay tagto qasriga, Nina waxay u malaynaysaa in la qiyaamiyey sida ciyaar xun oo naxariis darro ah, laakiin markii ay isku dayda inay ka baxdo, qof ajnabi ah ayaa joojiyay dariiqeeda. wuxuu si degan ugu sheegay in la siiyey amar ah inuu hubiyo in aysan baxsan. kadibna qofkaasi wuxuu si degdeg ah ugu bedelay deganaansho ilaa ay waalid dhab ah ka hor inta aysan dhaqaaq samaynin. wax kasii mudow ayaa soo muuqda gadaashooda. Tenma ayaa goobta soo galay, wuxuuna joojiyey ninka markiiba uu doonayay inuu Nina weeraro, laakiin Nina laftigeedu ma ahan gabar dhiban oo liidata. waxay dhulka dhigtay ninka weeraray, waxayna isticmaashay garabaatiga Tenma sidii xarig gacmeed. hadda ninkaasi la xakameeyey wuxuu si kama u sii daayay xog muhiim ah. Johan ayaa amray inuu Nina halkaas ku hayo ilaa uu ku soo laabanayo arrin oo isaga soo dhammaystirayo. tani ma ahan war wanaagsan, ma jirto waqti la lumin karo. Tenma iyo Nina waxay u cararaan guriga Fodner, maxaa yeelay haddii qorshaha Johan weli socdo, markaas weli way ka fogtahay xaaladda dhammaadka. qaybta 7 Tenma iyo Nina waxay yimaadaan guriga Fodner, waxayna toos ugu dhacaan riyan xadin leh. waalidiinta Koreya Nina iyo Jack Moore ayaa ku quban dhiigooda dhulka. Tenma wuu burburaa, wuxuuna isku duwaa meedka Jack Moore isagoo aan sigaarka la shidan gacanta ku hayo. Mr. Maurer, you don't have to quit smoking anymore, all right? intaa kadib Nina waxay dib u heshaa xasuusteeda oo dhan, iyadoo hadda mar labaad waalidiinteed lumisay xaalad murugo ah oo la mid ah tii hore. goordhow laba sarkaal oo boolis ayaa soo muuqday, dambibaare Misner iyo dambibaare Muller. waxay baaraan goobta dembiga, kadibna Tenma iyo Nina u sheegaan inay u raacaan xarunta booliska. laakiin waxbaa ka qaldan raggan. markay dhex marayaan habeenkii, Tenma si dhow ayuu u fiirinayaa. markaas ayuu arkaa dhiig ku daadsan dharka Misner. wuxuu fahmay in raggan ay yihiin boolis been abuur ah. markay ku dhowaanayaan checkpoint, Tenma wuxuu go'aansadaa inuu dhaqso u dhaqaaqo. wuxuu sargaalada u sheegayaa in Nina ay u baahan tahay hawada cusub. markii ay banaanka soo baxaan, wuxuu qabtaa gacanta Nina, labadoodana way cararaan, waxayna toos ugu dawaalanayaan webiga si ay ugu baxsadaan. iyagoo qubaysan oo qabo, waxay helaan hooy ku yaal qol yar oo qoto dheer keenta ku dhex jira. halkaas Nina waxay ka sheekaysaa ugu dambeyn kulankii naxdinta lahaa ee Johan markii ay caruur ahayd iyo sida uu ugu baryay inay disho isaga. kadib iyadoo leh dareen iyo xanaaq dhab ah, waxay Tenma kula wajahan tahay caro iyo niyad jab. haddii aadan badbaadinin Johan sanadihii hore, waalidiintayda way noolaan lahaayeen. Tenma wuu ogyahay inay sax tahay. markaad i toogato hubi inaad qoriga daaqada ka tuurto. wuxuuna ii sheegay inaan beegsado madaxiisa. subaxdii dambe Tenma wuxuu ku soo laabtaa magaalada si uu ugu sheego booliska wixii dhacay. banaanka saldhigga wuxuu la kulmaa warbaahin badan oo ka sheekaynaysa dhacdo cusub. ninka waalan ee isku dayay inuu Nina weeraro hadda wuu dhintay. warbaahintu waxay u malaynayaan in dilkiisa uu la xiriiray dilalka guriga Fodner. kadibna yaab kale ayaa dhaca. Misner iyo Muller, sargaaladii laga shakiyay goobta dembiga, waa boolis dhab ah. hadda booliska Heidelberg waxay raadinayaan eedeeye cusub oo ku saabsan dilalka ugu dambeeyay. waa Tenma. dhanka kale kormeeraha Lunga ayaa yimaaday Heidelberg Castle si uu u baaro. cadeymaha oo helo waxaa ka mid ah wax go'aanka madambeysa ka dhigaya arrinta garabaatiga Tenma. markii Tenma ku soo laabto qolkii keenta isagoo filayo inuu Nina la hadlo si wax loo kala cadeeyo, wuxuu ogaadaa in qolka gibi ahaanba madhan yahay. way maqan tahay. dhanka iftiinka waxay ka tagtay warqad ay ku oranayso inaysan waxba ka qabin Tenma markii uu Johan dib ugu sii daayay dunida. dhakhtarka wuxuu mar hore soo maray in ka badan intii uu xamili karo.
qaybta sideedaad Inspector Lunga wuxuu booqasho ugu tagaa Eva si uu ula yeesho sheeko yar. Wuxuu rabiyaa inuu ogaado sababta goob dilka dhacay looga helay garabaatiga Tenma. Eva sida caadiga ah waa isku dhaf xanuun drama. Maalmahan waxay isku qoostaa qamriga, isku dayaysaa inay u ilowdo siday u ahayd aqli daro markii ay ka tagtay hogaamiyaha Sigma ee sheekada. Marka laga hadlayo arrintaas, waxay go'aansataa in ay Tenma booqato Esmer Memorial Hospital, isku dayaysaa inay wax hagaajiso, laakiin Tenma mar dambe ma rabo inuu ciyaaro ciyaarta jaceylka. Sidaas darteed si degdeg ah ayuu u diidaa. Halkan ayay Eva istaraatiijiyad cusub ku bedeshaa, ama wuu u soo noqdaa ama waxay boolisku sheegi doontaa dhammaan dambiyada uusan samaynin. Tenma wuxuu iska dhigaa in uusan maqlin, laakiin tani waa xadkii ugu dambeeyay. Hadhowta Eva la diiday mala xuduud, waxayna isla markiiba u tagtaa kormeeraha Lunga iyada oo shaaca ka qaadaysa wax kasta oo ay garanayso. Lunga waqtigiisa ma lumin, wuxuu amraa in la soo qabto Tenma si loo baaro dilkii Heidelberg Castle, laakiin Tenma oo leh xirfadda badbaadinta kasii fiican mid qaliin ayaa hore u arkay waxa dhici doona. Ma aamini karo booliska kadib dilalka Fodner, sidaas darteed wuxuu iscasilaada ka dhiibtaa isbitaalka. Marka booliska yimaado, wuxuu sameeyaa ka bixitaanka ugu xiisaha badan isagoo ku qarsoomay ambalaas kana cararay qorax dhaca. hey jidka ka baxa idinku waxaad carqaladaynaysaan booliiska maya weligiis Dr. Tenma weligiis ma awoodi doono inuu qof dilo 5 bilood kadib dhakhtarkeenii hore ee deganaa ee dabeecadda jilicsan lahaa hadda wuxuu noqday nin baxsad ah oo safar ahaan ugu socda Frankfurt, halkaas uu yahay tuunsanaha koowaad ee dilka qoyska Springer, lamaana kale oo dhexdhexaad ah, markaana gacantiisu waxaa ku jira hub culus. taasi runtii waa horumar dabeecadeed oo weyn. qayb sagaalaad waxay ka hadlaysaa 5 bilood oo tababar ah ka hor inta uusan noqon dhakhtarkii nabadda jeclaanin hub wata oo khatar ah. marka la gaaro qaybta 10aad Tenma wuxuu yimaadaa Frankfurt, hadda waa nin la raadinayo. warbaahinta waxay u aragtaa dilka taxanaha oo caanka ah, laakiin isaga ma ahan qof si fudud loo mashquulin karo. isaga ayaa Johan ka badbaadiyay geeri qarka u saarnay, sidaas darteed wuxuu dareemayaa inay isaga waajib ku tahay inuu isaga ka takhaluso mar kaliya oo dhamaad ah. intii uu baarayay dilka qoyska Springer, qoys uu hore u noolaa Johan, Tenma tagaa gurigooda balse wuxuu halkaas ka helaa tuug hore u jooga. halkaas ayaana lagu baraa Otto Heckel, tuug yar oo waqtigaas ku mashquulsan inuu guriga dhaco ka hor inta uu Tenma go'aan ka gaarin inuu xanaaqamo uu yaabo. booliska ayaa soo gaaraya, waxaana si lama filaan ah u noqdaan labadooda dad baxsad ah. taasi ma ahan iskaashiga oo Tenma filayay. Otto oo ah nin fursad raadis oo xirfad leh, wuxuu Tenma u soo bandhigay hashiish. haddii Tenma ogolaaday inuu noqdo dhakhtar qarsoodi ah oo u shaqeeya dambiilayaasha, Otto wuxuu u horseedi doonaa ninka dhab ahaantii dilka qoyska Springer. Tenma arrintan aad uma jecla, laakiin fursadan waa mid aad u weyn oo aan la iska dhaafi karin. waxay si degdeg ah u helaan guriga ninka dilka geystay, halkaas uu Tenma uu foolka fool ula kulmo nin hubsita oo sheeko aad u yaab badan. waxaa soo baxaysa in Johan uu ahaa wiil ay korsadeen qoyska Springer muddo ku dhow 1 sano. ninkan hubka wata wuxuu ahaa saaxiibkiis xilligaas. waqtigaas Johan wuxuu isticmaali jiray magaca Erik, wax walba si fiican ay u socdeen, dhamaantoodna waxay ku jireen nolol farxad leh. ilaa qoyska Springer ay go'aansadeen inay burburiyaan beerta ubaxa Sunflowerska si ay ugu dhigaan meel baabuurta la dhigto. waxay u muuqataa arrin sahlan sax, laakiin sidaas ma ahan. ninkan wuxuu lahaa xusuus qiimo leh oo uu hooyadii kula dhex socon jiray beeraha ubaxa ee Sunflowerska. sidaas darteed markii ay qoyska Springer ay burburiyeen beertiisa, wuxuu aga cawday arrintaas saaxiibkiis Johan ama Erik si sax ah, laakiin Johan wuxuu arrinta ka dhigay mid aad uga sii xun. wuxuu ku qanciyay in qoyska Springer aysan mar dambe ahayn qoyskiisa, isla markaana uu si fudud u dili karo. nasiib daro tani waa waxa uu sameeyay. waxaad aragtaa Johan waa xeel dheere sare oo ku takhasusay maamulida maskaxda dadka. in waalidkiisa korsaday la dilo ama uu dadka kale u adeegsado shaqadiisa madow wax la yaab la ma ahan. markii uu Tenma uu diyaar u yahay inuu baxo, ninka wuxuu sii daayaa sir kale oo culus. Johan wuxuu fariin aga tagay guriga Springer, kadibna ninka isaga isdilaya. qadarkaaga mar hore ayaa la go'aamiyey anigana sidoo kale Tenma iyo Otto waxay dib ugu cararaan guriga Springer, halkaas oo ay ka helaan fariinta qarsoodiga ah ee Johan oo derbiga ku qoran. hadda waxaad dareemi kartaa qaab xariifnimo leh oo ku celcelis ah. qaar badan oo ka mid ah lamaanayaasha da'da dhexe ee la dilay ee aan caruur lahayn waxay hore u korsadeen Johan iyo Nina labadaba ama mid ka mid ah. tani waa faahfaahin muhiim ah maxaa yeelay ma ahan oo kaliya in Johan uu hadda ku soo jeeday Tenma inuu hadda isticmaalo magac cusub. Johan sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu doonayo inuu baabi'iyo qof kasta oo garanaya taariikhdiisa. marka laga reebo Tenma, tani waxay ku jirtaa waalidiintiisii koriyay ee da'da dhexe iyo sidoo kale dadkii fuliyay howshiisa qashinka. marka aan ku noqono qaybta xigta, Otto wuxuu la yimaadaa qorshe kale oo qarsoon. wuxuu qiyaameeyaa Tenma si uu u qaato boorso caafimaad oo shaki leh, uguna daweeyo nin argagixiso oo la raadinayo oo lagu magacaabo Kelbrand, kaas oo si kam ah u dilay ilmo yar intii uu ku jiray howl. Tenma xaaladda hal mar ayuu eegaa, si cad ayuu ugu baxaa arrintaas. xitaa hanjabaada ah in ragga Karal ay tooganayaan ma qancinayso. qaybtan waxay si weyn u muujinaysaa akhlaaqda adag ee dabeecadda ugu weyn. kadib waxaan ogaanay in Karal asal ahaan uu sameeyay fal u eg kilowgii, isagoo ka hortagay ama weeraray madax
sare shirkad weyn oo hunguri leh. marka su'aashu waxay noqonaysaa maxaa Tenma ugu badbaadinaya nolosha nin ficiladiisa xitaa haddii ay lahaayeen sababeen dhimashada gabar oo aan waxba galabsan. kadib markii Karal uu yiraahdo ereydiisii ugu dambeeyay ee muujinaya inuusan rabin inuu dhinto, Tenma si adag ayuu u canaantaa. haddana si qasab ah ayuu u sameeyaa daaweyn degdeg ah ka hor inta uusan ku adkaysan in loo qaado isbitaal dhab ah. laakiin Otto oo hunguri badan wuxuu arkaa war ku saabsan abaalmarin loo ballan qaaday qabashada argagixisada, wuxuuna isla markiiba u sheegaa booliska sirta bixiya. Tenma iyo Karal waxay ku guuleystaan inay helaan meel ay ku dhuntaan. markii Karal uu weydiiyo sababta uu Tenma u badbaadiyay isagoo argagixiso ah, Tenma wuxuu bixiyaa jawaab aad u fudud. sababtoo ah waan ku aaminsanahay. waxaan kalsooni ku qabaa bini'aadanimadaada. ma ahan wax lala yaabo, jilaha ugu weyn ma jeclaystay inuu ciyaaro. Karal ugu dambeyntii waa la xiraa sidii ay ahayd. qaybta 11 baaritaanka Tenma ee jawaabaha wuxuu ku geeyaa Berlin, halkaas oo uu booqdo gurigii hore ee qoyska Libert isagoo rajeynaya inuu wax badan ka ogaado taariikhda Johan. halkaas wuxuu kula kulmaa sarkaal hore oo ka tirsanaa Jarmalkii bari, kaas oo u sheegay wax aan la filaynin. labada ilmood oo korsaday Libert waxay ka yimaadeen meel la yiraahdo Kinderheim 511 iyadoo uu raacayo hoggaankan cusub. Tenma wuxuu helaa Kinderheim 511 oo hadda la dayacay. goobtu waa burbur, waa shil wixii ay hore u ahayd, laakiin raadintiisa halkaas kuma joogsan. waxay u horseedaa Marta Hartmann oo ahaa sarkaal hore oo ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka ee Jarmalkii bari, kaas oo u muuqdo inuu wax badan ogyahay balse uusan diyaar u ahayn inuu wadaago. markii uu kusii jeedo guriga Hartmann, Tenma wuxuu la kulmaa wiil yar oo dhaawac ah oo keli ah. wuu daweeyaa wiilka kadibna wuu sii daayaa isagoo aan wax badan ka fikirin. laakiin weli ma ahan markii ugu dambeysay ee aan aragno wiilkaas. markii uu Tenma gaaro guriga Hartmann, sheekadu waxay qaadataa jirid la yaab leh. Kinderheim 511 waxay ahayd siyaasad orfanagi ah, waxay ahayd xabsiga dhabta ah. tani waxay xaqiijinaysaa in Johan iyo walaashiisa la kala geeyay. ana waxaa loo diray agoon kale, laakiin Johan wuu ka duwanaa. Hartmann si fiican ayuu garanayay. wuxuu xitaa sheegaa in Johan uu hogaamiyey kacdoon ka dhacay Kinderheim 511. laakiin markuu Tenma isku dayay inuu helo faahfaahin ku saabsan taariikhda goobta, albaabku wuu furmaa waxaana soo galay wiilkii uu Tenma hore u caawiyey. magaciisu waa Dieter, wuxuuna nool yahay Hartmann. wax ka mid ah xaaladda ayaa Tenma ka yaabisay, sidaas darteed wuu ka tagaa isagoo ballan qaaday inuu dib ugu soo laaban doono. daqiiqado kadib waxaan aragnaa muuqaal cabsi leh oo Hartmann u muujinaya Dieter. markii uu dib u laabanayo, Tenma wuxuu arkaa kubadda cagta oo ku jirta daaqadda dukaanka, wuxuuna u iibinayaa Dieter si uu ugu farxiyo. kadib markii uu helay saacad farsamo oo u iibiyey argagixiso dhiman Adolf Junkers, helitaanka kubad ciyaareed wiil yar oo ka dhiga mid dhoola cadeynaya ma ahan wax lala yaabo. laakiin markuu Tenma soo laabtay, wuxuu arkaa xaqiiqda naxdinta leh. Dieter suxun ayaa loo garaacay oo way caddayaa mas-uulka ah. adigu dhakhtar baad tahay, sax miyaa? midka loo raadinayo dilka. iyadoo aan wax badan laga fikirin, Tenma wuxuu soo qaataa bistooladiisa isagoo tooganaya Hartmann. muddo kooban waxay u egtahay inuu dhab ahaantii toogtay, laakiin beddelkeeda wuu leexdaa isagoo Dieter qaadaya, wuxuuna u cararaa isbitaal. wuxuu sidoo kale degniin siinaya kalkaalisada in aanan cid kala qaadin wiilka. kadib go'aansaday inuu Dieter meel ammaana geysto. Tenma wuxuu raadiyaa orfanage, wuxuu tagaa meesha ay Nina Anna ku ahayd caruurnimadeedii. halkaas wuxuu la kulmaa Erna Tietze oo la wadaagtay qayb muhiim ah oo xalinta xigmadda. Johan iyo walaashiis waxaa laga helay iyaga oo ku sugan xadka Slovakia. kadibna waxay u sheegtaa wax ka sii naxdin badan. Kinderheim 511 meesha Johan lagu barbaariyay ma ahan kaliya orfanage, waxay ahayd tijaabo sida haddii xabsigu ee ekaanta goobta aysan ku filnayn. hadda waxaan dhaqaaqaynaa Joseph Mengele ee xerooyinka xoogga lagu hayo. episode 12 waxaa la sii wadayaa iyadoo Erna sharaxaysa waxa ka dhacay 511. waxaa la sheegay in orfanage-kan lagu maamulayo wasaaradda fayaqoobka iyo wasaaradda gudaha ee East Germany. ujeedadeedana ay ahayd in carruurta laga dhigo askar quman. waa mashruuc gaar ah oo maskaxda carruurta wax u bedelay, iyagoo ku khasbay dhinacyo dagaal oo tirtiray damqasho kasta oo naxariis ah. markii shuuciyaddu burburtay, dhammaan mas-uuliyiintii bariga ee ku lug lahaa mashruuca waxay gebi ahaanba kala firigsadeen ku dhowaad dhammaantood. laakiin hal nin ayaa meesha ku heray, Hartmann wuxuu ahaa sarkaal hore oo ka tirsanaa wasaaradda fayaqabka, isla markaana si shakhsi ah u maamuli jiray 511. Erna waxay markaas muujisaa in wax naxdin la ka dhacay 511, taas oo keentay geerida dhammaan carruurtii iyo macallimiintii marka laga reebo Johan. dhanka isbitaalka, Hartmann wuu ka hortagaa Tenma isagoo qaaday Dieter ka hor inta aanan Tenma imaan. markii dhakhtarka baxsadka ah oo soo gaaro, Dieter aad ayuu ugu maqan yahay. Tenma wuu cararayaa ilaa apartmentiga Hartmann, rajaynaya inuu helo, laakiin wuxuu halkaas ka helaa meel madhan. waxa uu helaa si kastaba ahaatee waa buug sawiro duug ah oo ka yimid Kinderheim 511, waxaana ka mid ah sawir Johan yar oo taagan yahay agagaarka nin aad u weyn. Every single one of these photographs was taken at 511 Kinderheim. Tenma wuxuu sheegayaa in sawir kasta oo halkaas lagu qaaday Kinderheim 511 iyagoo filaya in ay jawaabo badan ka helaan 511. Tenma wuxuu u jeestaa halkaas, wuxuuna helaa Dieter oo suxun loo garaacay kuna fadhiyo kursiga boqorka agagaarkiisana oo ka ololaya dab weyn. kadib Hartmann ayaa ka soo muuqda dhabarka Dieter sida riyadii kale, wuxuuna si degan u soo bandhigaa mid ka mid ah xaqiiqooyinka ugu cabsida badan ilaa ay hadda. qof waliba oo ku jiray 511, macallimiin iyo carruurba way is xasuuqeen. Johanna wuxuu joogay halkaas isagoo dusha ka daawanaya wax kasta oo dhacayo, kuna fadhiyo kursiga
boqorka sare ee jaranjarada. Hartiman wuxuu daaha ka rogaa in uu jiray loolan awood oo aad u daran kaas oo baabi'iyey dhammaan 50 macalin iyo agoonta ku jirtay 511. kadibna waxaa imaanaya qaybta ugu yaabka badan. Johan isaga ayaa dabka shiday si macna ahaan sidee kaliya wuxuu ku daray shidaal yar dabkii hore u jiray. xusuusnow kani wuxuu ahaa wiil 10 sano jir ah. awoodiisa uu dadku ku maamulo eraya waxay bilaabatay si aad u horeysa caruurnimadiisii, laakiin intaas kuma eka. waxaan sidoo kale aragnaa in Hartiman uu si xad dhaaf ah ugu hamuun qabay Johan sanado badan ilaa uu ka dhigtay riwaayad uu caruurta u jir dilo si uu ugu sameeyo nuqlo yaryar oo Johan ah. Dieterna waa mid kale oo ka mid ah mashruucyada yaryar ee Kinderheim Hartiman, laakiin sida uu Hartiman qirayo ma ahan Kinderheim 511 kii ka dhigay Johan bahalka dhabta ah uu yahay. Johan wuxuu ka sareeyay askar quman, wuxuu ahaa hogaamiye si dabiici ah dhashay, mana jirin si 511 ay u abuuri karta farshaxan sidan u heer sare ah. Hartiman wuxuu sheegayaa in hadafka ugu dambeeya ee nolosha Johan uu ahaa inuu noqdo qofka ugu dambeeya ee ka hara dhamaadka adduunka. Caruurta caadiga ah ee 10 sano jirka ah waxay ku haminayeen inay noqdaan cirbixiyeeno, laakiin isaga Johan wuxuu ku riyoonayay inuu qof walba tirtiro. Dieter dhankiisa ma lahan maskaxdaas mugdiga ah ee dhamaadka adduunka, taas oo indhaha Hartiman ka dhigaysa mid niyad jabsan. haddii aadan hiigsanaynin inaad noqoto naqshadeeyaha masiibada aadanaha, waxaad u muuqataa inaadan awooddaadu buuxda. tan ma Dieter ayuu laba doorasho u soo bandhigaya inuu isaga la socdo ama Hartiman la joogo, laakiin Hartiman wuu ku qoslaa isagoo aaminsan in uu Dieter weligiis ka tagi doonin. kadib si uu hadalka u sii culeysiyo wuxuu bixiyaa xog kale oo muhiim ah. wuxuu sheegayaa inuusan lahayn waxa ay u baahan tahay Tenma si uu u dilo Johan, laakiin haddii uu doonayo jawaabo dhab ah waa inuu helaa General Wolf, ninka sawirka kula jira Johan. General Wolf sida la ogaaday wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee helay Johan. Dieter wuxuu doortay ninkiisii kubadda uu ka ciyaaro halkii uu ka dooran lahaa ninkii gacantiisa dhaawacay. Dieter, runtii ma u malaynaysaa inaad iga maarmi karto? Tenma ayaa qaata, halkaasna ayuu ku bilaabmaya lamaano cusub, dhakhtar iyo wiil agoonta ah.